waa subaxnimo khamiis 25 bisha afraad ee abriil sanadka 2024 haatana kusoo dhawaada qodobadaasi iyo qodobo kale subaxnimadana waxaa idii warami doona Cabdiraxmaan Macalin Muuse. Aynu ku bilownay shacabka ku dhaqan magaalooyinka ay ka mid tahay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa looga digay fatahaado laga cabsi qabo inay kusoo wajahan yihiin. Warbixinta warkaani waxaa soo koobaya wariyahayaga Mustafa Cali Cadow. hay-adda qaxootiga barakacayaasha qaranka Soomaaliyeed ayaa digniin ka soo saartay saameynta iyo dhibaatooyin ka dhalan kara roobab aad u xooggan oo la filayo in 8 maalmood ee soo socota ay ka daan magaalooyinka Beledweyne, Bu'aale, Garbahare iyo Baydhabo. Si gaar ah waxay hay-addu ay digniin ay ugu diraysaa dadka barakacayaasha ah ee ku nool degmooyinka iyo deegaano ku xusan warqadan, kuwaasoo lagu wargeliyay inay ka feejignaadaan waxyeelada roobka. Dadkan waxaa sidoo kale lagu sheegay in digniintani ay yihiin dadka ugu nugul uguna saameynta xooggan biyo-baxooyinka iyo fatahaadaha ka dhaca dalka. Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan 8 maalin ee soo socota roobab xooggan ayaa la filayaa inay ka daan Beledweyne iyo deegaanada ku xeeran. Waxaa aad u sarreysa suurtagalnimada biyo-baxo ka dhacda magaalada Beledweyne, gaar ahaan hareeraha webiga Shabeelle. Hay-addu waxay sheegtay in la qiyaasayo biyaha roobka aad u xooggan inay sare u kacaan biyaha webiga, taasoo ka dhalan karto fatahaad sababi kara barakac bulsho iyo sidoo kale dhibaatooyin kale oo xooggan. Sidaas awgeedna dadka degan magaalada Beledweyne waa inay muujiyaan taxaddar aad u xooggan, ayaana lagu yiri qoraalka. Magaalada Bu'aale 8 maalmood ee soo socota roobab xooggan ayaa la filayaa inay ka daan magaalada Bu'aale iyo deegaanada ku xeeran. Waxaa aad u sarreysa suurtagalnimada inay biyo-baxyo ka dhacdo. Sidaas awgeedna waa inay dadyowga deegaanadaasi aad u taxadaraan, ayaana lagu yiri qoraalka. Magaalada Garbahare si la mid ah magaalooyinka kale waxaa aad markaasi loo saadaalinayaa in 8 maalmood ee soo socota roobab xooggan ay ka daan Garbahare iyo deegaanada ku xeeran. Waxaana digniinta loo diray dadka deegaanadaasi oo laga dalbaday inay taxaddar ay muujiyaan. Magaalada Baydhabo 8 maalmood ee soo socota roobab xooggan ayaa la filayaa inay ka daan Baydhabo iyo deegaanada ku xeeran. Waxaana aad u sarreysa suurtagalnimada biyo-baxa ka dhacdo. Sidaas awgeedna waa in dadyowga deegaanadaasi aad u taxadaraan, ayaana lagu yiri qoraalka hay-adda qaxootiga barakacayaasha adduunka. aad buu mahadsan yahay Mustafa Cali Cadow oo warbixinta warkaasi inala socodsiinayay. Markana Villa Soomaaliya ayaa warmurtiyeed ka soo saartay xiriirka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya kala dhaxeeya dowlad goboleedyada. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo saaray qoraal uu kaga dalbanayo isla markaana kaga hadlayo xiriirka ka dhaxeeya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka. Waxaana uu farta ku fiiqay maamulka Puntland, isaga oo sheegay in tan iyo markii uu xafiiska yimi uu ku howlanaa sidii ay wada shaqayn u yeelan lahaayeen dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, balse aysan weli suurtagelin. Isaga oo markaasi ballan qaaday in tallaabo degdeg ah iyo dadaalo dheeraad ah ay ku bixin doonaan dhamaystirka madmadowga dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada, gaar ahaan maamulka Puntland. Madaxweynaha ayaa dowlad goboleedyada uga digay in la siyaasadeeyo arrimaha masiiriga ah ee dalka, sida midnimada wadajirka dalka, madax bannaanida gobonimada siyaasadeed ee dalka, amniga iyo sidoo kale badqabka muwaadiniinta. Qoraalka Villada ayaa sida tani u qornaa: dowladda federaalka ah ee Soomaaliyeed ee aan hogaamiyo waxa ay ugu horreyntiiba mudnaan gaar ah siisay xiriirka wada shaqayneed ee kala dhaxeeya dowlad goboleedyada, iyada oo saldhig uga dhigaysa wada shaqaynta iyo sidoo kale mabaadi'da dastuuriga ah ee nahagaya wada shaqaynta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada, si loo dardargeliyo fulinta ajandayaasha qoran oo ay ugu horeeyaan isla markaana adkeynta amniga dalka, dhamaystirka dastuurka dalka iyo sidoo kale kaasi oo dabranaa muddo ka badan 10 sanadood, xoojinta federaaleynta dalka iyo sidoo kale horumarinta dhaqaalaha. Nasiib wanaag, muddadii koobneed ee aan talada dalka hayay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay hirgelisay xaqiijisay inta badan ajandayaashii muddada waa markaasi inagu dadbanaa, isla markaana annaga oo ka guulo gaarnay la dagaalanka khawaarijta, aan deegaano baaxad ka saarnay qaadista cunaqabataynta hubka, kaasi oo in ka badan muddo 30 sano ah Soomaaliya saarnaa, dayn cafinta kaasi oo inaga hor istaagay maalgashiga caalamiga. dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxay horumar ka samaysay dib u eegista dastuurka iyo dhamaystirka
iyada oo samaysay wadatashiyo saamilayda siyaasadda si gaar ah tala ururinta dadweynaha, taasi oo si toos ah iyo si dadbanba aynu u sameynay. welina waxa ay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya dhiirigelinaysaa wadaxaajoodyada wadatashyada lagu dhammaystirayo dastuurka dalka si shacabka Soomaaliyeed ay u gaaraan himilooyinkooda ay hiigsanayaan ee helitaanka dowlad hagaagsan oo dimuqraadiyad ah kana shaqeysa baraaraha muwaadiniinta Soomaaliga ah. waxaan si gaar ah hoos uga xariiqayaa in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya dadaalo fara badan ay ku bixinayso hagaajinta xiriirka wada shaqeyneed ee kala dhaxeeya dhammaan dowlad goboleedyada, si gaar ah dowladda Puntland, si ay u noqoto xiriir sharci ah oo ku saleysan danta dalka iyo dadka. welina waxaa inaga go-an dowladda federaalka ah ee Soomaaliya sii wadista dadaalada iyo dadaal kasta oo ay ku hagaajinayso xiriirka dowladda Puntland si dalka Soomaaliya u hantaan iyo dadka Soomaaliyeedba ay u hantaan dowlad Soomaaliyeed oo xaqiijin karta himilooyinka dowladnimada. haddaba dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxaa ka go-an sidii horeba in aysan marnaba siyaasadeynin waajibaadka ka saaran wada shaqeynta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo heer gobolba, si gaar ah arrimaha ku saabsan dhaqaalaha, horumarinta iyo la tacaalidda arrimaha bini'aadantinimada, iyadoo adkeynaysa waajibaadka iyo sidoo kale xuquuqda ay leeyihiin ummadda Soomaaliyeed ee dastuuriga ah. ugu dambeyntii, annaga oo ka duulayna isla markaana gudanayna xilkeena inaga saaran ee dastuuriga ah ilaalinta midnimada wadajirka dalka, waxa aan xusuusinaynaa sida ay markaasi u qaba dastuurka dalka iyo dowlad goboleedyada in aysan marnaba siyaasadeynin arrimaha masiiriga ah ee dowladnimada Soomaaliyeed, sida midnimada wadajirka dalka, madax banaanida, gobonnimada siyaasadeed ee dalka, amniga dalka iyo sidoo kale badqabka muwaadiniinta Soomaaliyeed, ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay Villa Soomaaliya. markana isla wararka magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya ayaynu ku guda jirnay. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa xariga ka jaray adeega gargaarka degdega ah ee dadweynaha. warbixinta warkaani waxaa soo koobay wariyahayaga Cabdiqaani Cosoble. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa xariga ka jaray xarunta howlgalka degdega ah ee caafimaadka dadweynaha ee gobolka Banaadir. xaruntan oo laga hirgeliyay degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho ayaa noqon doonto mid la socota dhaqdhaqaaqyada xaaladaha caafimaad ee gobolka ka jira iyo ururinta xogaha, sida uu sheegay agaasimaha caafimaadka maamulka gobolka Banaadir iyo dowladaha hoose ee Xamar Dr. Cabdiraxmaan Axmed Maxamed. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa sheegay in xarunta howlgalka degdega ee caafimaadka dadweynaha ay qayb weyn ka qaadan doonto daboolidda adeegyada caafimaadka oo ay baahi u qabaan bulshada gobolka Banaadir. بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ضمان مسؤول تعالى كدبنا واحد عافمات كيقول كبنادر جهد بدن جلسي سيد اللوجة فإذا يسلها ماشى سيدة لو ندد تجلها ما دام يتاجنتها باهدة هذا أو ماركت إن مدة لاقبي يا إلهي الناس ورجلي إن أنا جلسي إن أنا أهلنا gurmadka degdega ah xarun caafimaad inaan u helno. marka taas maanta oo ah 24 bishii Abriil 2024 inay noo suura gashay. waa maanta waa 24 bishuna waa bishii afaraad sanadkuna waa 24 marka afar isku aaday ayay ku soo aaday xariiq jarka xarunta. marka insha Allah waxay noqon doontaa taariikh lama ilaabaan ah haddii Ilaahay yiraahdo. sida intaa kadib waxaan howlgelinay waan muddo ka maqnaay saaxada caafimaadka wixii la dhihi jiray faydoor. waan ogsoonahay doorka uu ku lahaa maaragtay badqabka ummadda bulshada Soomaaliyeed oo aad iyo aad looga gaabiyay. waxaa Ilaahay noo suura geliyay asagana inaan soo kordhino sanadkan 2024 oo shaqo bilaabay January 9keedii inuu shaqo bilaabay arinta faydoorka loo diyaariyay gaadiid loo diyaariyay dad ka shaqeeya arrimaha caafimaadka oo khibrad u leh. halkaad weli nagala socotaana waa hiiraan weyn qeybaheeda kala gedisan 9 megahertz beledweyne ee deegaanada ku gadaaman buulo barda jalaalaqsi iyo jowhar. halka caalamka live streamka iyo aalada facebooka si toos ah inoogala socotaan. markana
turkiga iyo soomaaliya ayaa waxa ay wadaan dhammaystirka heshiiskii ay gaareen. wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur jaamac ayaa kulan gaar ah xarunta wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya kula qaatay mas-uuliyiinta wasaaradda gaashaandhigga iyo saraakiisha ciidamada turkiga ee saarnaa markabka dagaalkaasi oo 2 maalin ka hor kusoo xirtay magaalada caasimadda ah ee muqdisho. ajandaha kulankaasi ayaa ahaa qorsheynta iyo qaabeynta lagu dharaandhirinayo hanaanka fulinta qodobo ay ka mid yihiin heshiiska soomaaliya iyo turkiga, gaar ahaan arrimaha tababarada iyo taakulaynta ciidamada. kulankaasi intiisa badan ayaa diiradda lagu saaray arrimaha ciidamada, waxaana ka qayb galay taliya ku-xigeenka ciidamada xoogga dalka soomaaliya sareeye guutamaade nuuri sheekh iyo saraakiil kale. kulankaasi waxaa ka horeeyay mid ay magaalada muqdisho ku yeesheen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya iyo xubnaha la socday markabkani, waxaana uu ka dhacay xeyndaabka garoonka aadan cadda ee magaalada muqdisho. saraakiisha iyo taliyayaasha ciidamada turkiga ee saarnaa markabkan dagaal oo ay leeyihiin ciidamada difaaca ee dalka turkiya ayaa waxa ay 2 maalin ka hor ay kusoo xirteen dekada magaalada muqdisho ee caasimadda dalka. markabkaasi dushiisa ayaa waxaa lagu qabtay munaasabada lagu saxiixayay dhaqangelinta heshiiska iskaashiga difaaca dowladaha soomaaliya iyo turkiga, waxaana madaxdii ka qayb galay ugu sarreeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya iyo saraakiisha turkiga ayaa waxa ay sheegeen in markabkan difaaca turkiga oo ku xirtay muqdisho uu yahay dhacdo taariikhi ah oo xoojinaysa iskaashiga iyo walaaltinimada soomaaliya iyo turkiga. dhankiisa madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud hadaljeedintiisii ayuu ku yiri dowladda soomaaliya waxa ay walaalo la tahay dowladda turkiga oo heshiiska inaga dhexeeya waa dal iyo sidoo kale dad aanu naqaano marnaba hiil iyo sidoo kale inoo muujiyey, waxaana aan sii wadi doonaa saaxiibtinimada walaaltinimada aynu ku aamini karno iskaashiga muhiimka ah ee difaaca biyaheena iyo badeena qarameed, madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee soomaaliya. kusoo dhawow abka xiisaha badan ee qanciye. waxaad ka daawan kartaa filimada hindiga, ameerikaanka iyo kuwo kale oo xiiso badan. hadday ahaan lahayd musalsalada hindiga, turkida ama ameerikaanka oo af soomaali lagugu turjumay. waxaan ka marnayn ciyaaraha live-ka ah oo aad ka daawan kartid iyo weliba tiifiyada soomaalida dhammaantood. ka soo degso dooqaaga oo daawo bilaa internet, rukumo bil ama in ka badan oo hel adeegyadeenna. caawin 24 saac 7 maalin ah. degso muuqaalka aad ka heshid HD ku daawo dhammaan aflaanta iyo ciyaaraha. waxaad ku daawan kartaa laabtoobkaaga, moobilkaaga iyo weliba adigoo ku xiriirsan kara TV-gaaga. haddaba ha moogaan qanciyaha bulshada oo booqo Play Store-ka kuna qor qanciye. qanciye, aniga waa qanciyey, adiguna ma ku qanciyey.